waxaa maanta magaalada muqdisho caasimadda dalka gaar ahaan teendhada afisyoona ka furmay shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasoo laga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka shirkan ayaa waxaa horay u cilaamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aan la dhex qaadna muuqaal baahiyaha Soomaali News TV ayaa waxa aan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan rajada ay ka qabaan qodobada ka soo bixi doona shirkan ee lagu hadlay arrimaha doorashooyinka dalka qaar Allah ka dhigo dadku waa dhiban yahay wadanku waa dhiban yahay waxaan ka rajaynaynaa shirkaas inay wax fiican ka soo baxaan in lagu heshiiyo doorashada waqtiga la qabanayo la calaameeyo intaas baan ka rajaynaynaa isqabqabsigu faa'iido ma laha dad baa idin sugaya wadan baa idin sugaya taada kaliya ha fiirin waa dhiban yahay wadanku waa ogtiidaan maxkamad caalami ah ka dacwoonaynaa badihii baana lagu haystaa xuduudadiina lagu haystaa adinkuna maanta xalana iyo waxa isku haysataan iyo villa Soomaaliya waa laga fiican yahay walaalayaal madaxa kor u qaada shacabku waxay rajo ka qabaan meeshaan lagu heshiiyo yaan la isfiirfiirsan yaan dantaada laga shaqayn shacabka dantiisa iyo wadanka dantiisa laga shaqeeyo horta waxaan jeclahay waxyaalaha qayrka ah oo Soomaaliya u roon oo boqolkiiba boqol nabadaan aad u jecelnahay inay nabad ka soo baxdaan rajaynayna hadii Ilaahay yiraahdo aan ka rajaynayna Jubbaland waxaan in badan Soomaaliya ay ku noqotay Jubbaland waa baaqatay maanta hadii ay fadhiso waxaan jecelnahay go'aanka ugu dambeeyay inay Soomaaliya ay la qaataan oo Soomaaliya ay kala firdhinin oo si toos ah u wada yimaadaan miiska wada hadalka sida Soomaali u roon yaani laga helo Jubbaland maanta ayada kaliya Soomaaliya ma Soomaali way ku dhantahay meesha walaahi aad u soo dhaweynaa doorashada waqti badan waa la sugaayay maadaama xilliga doorashada waqtigeeda uu soo dhamaaday jijid iyo ismarwa marka waqtigan hadda wax kala ma aha isqa qabsi iyo waxa waaye iyo macnaha awood badsi oo ahaa macnaha in shirka uu qabsan waaye balse hadda Ilaahay maadii waa Soomaali waxa waaye badan ay ka tashatay waa loo taliyaa ilaa haddana waxa heer u gaar laana waxa waaye in anaga dhaxdeena heshiilaanahay balse hadda danta maadaama ay qabatay oo arrimaha oo beesha caalamka ay soo fargelisay waa soo dhaweynaya kulay xal waaye ma aha macnaha haddii xal la helan micneeda xitaa in heshiis uu soo dhaw yahay waqtigiina aad u sii kulaalaya oo waxa waa doorashada waqtigeedii uu ka dib dhacay Soomaalina inay barato waa laga fiican yahay inkastoo horay macnaha sharci ugu soo dhigeen hebel wuxuu ku darsaday 6 bilood hebel 5 bilood ku darsaday sidaba wax sharci darada ah ma noqdaan sharci hebel ay sameeyay sharci ma in waxa kula talinayaa mudug musharaxiinta in sharciga ay ilaaliyaan madaxweynaha Farmaajo asan waxa ugu baaqayaa in waqtiga loogu talka doorashada uu ku qabto shacabka dadweynaha wax walba way fahansiin waa ka dhaadhacsan tahay madaxweynahana maamulka waxa uu sheegay Axmedoobe iyo Dani in waqtiga ayaga naga beer darayaan waqtigina ayagana dib u dhac ku keeneen hadii qof walba heshiis ay noqon lahaayeen macnaha already bo macnaha doorashada qabsoon milaad marka waa hadda soo dhaweynaya beesha caalamkana waxa waaye ugu mahad celinaa macnaha in soo fargelisa ma jeclaan balse danta keentay in macnaha dib u dhac uu imaanin aad ugu faraxsanahay xalana waxa ka gudbi doonaa mar dhow insha Allah taala waxaan doorashada ka dhici doontaa meesha loogu talagalay loo asteeyay doorashada insha Allah taala bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad aniga fikirka aan ka qabo waxay tahay in la shiro waa wax aad iyo aad loo sugayay waa soo dhaweynaya waan ila saxan tahay laakiin waxaan dhaliilayaa Soomaalidu meeshan inay isgaarsiiyeen dhaliilan ka qabaa in mar walba la soo dhax galo laguna qasbo ayagoo hogaamiyaal ah goboleed iyo gudoomiye goboleyaal ah in la yiraahdo oo mas'uuliyiin iska dhigaya lagu qasbo inay ka bixin ilaa ay go'aan gaaraan dhagdil iyo magaxumo Soomaalidu soo yeetay ila tahay khaasatan labada gobol oo geesaha sababtoo adkeyntan iyo waqti dhumiskan ayaga ayaa noo keen anuu fikirkan qabo wuxuu yahay in ayagana shisheeye ka dambeeyeen ayaguna ay heerkan oo dib u dhacan ayagu lug weyn ay ku leeyihiin
la saxan arrinta waan taageersan sababta ku taageerana waxay tahay laakiin dhinaca hadda loo fiiriyana waa dhagxamo aan gooyito ayagoo kunta albuul yahliki Soomaaliya ay qaadano maanta inuu gooliyo ilaa shaka ku taar oo ugu qasbo dhagxamo Soomaaliya gooyito waa dhagxamadaas waxaa keenay gudoomiye goboleyaasha madaxweynaha ugu fiican marka hore madaxweynaha ugu fiican gudoomiye gobolada laba boqol fasax gudoomiye ka madaxweynaha ugu fiican galmo بدنا نقول هذا فرح أي شركات جلو هنا نوب جلواتي الكودة Soomaaliya loo sheego oo amar dalsi shay maanta shaqeeyna aad uga maxay sidoo kale waxa aad uga maxay 4 sano ka hor meeshii amaan ahaan loogu talagalay oo dawladda ilaalinayo doorashada lagu qabanayo in maanta 4 sano bacdi shirku uu qabto Soomaaliya aad uga maxay Soomaaliya maanta madaxda ragga maamul goboleedyada laga dhigay madaxweynayaasha uu sheegay laakiin maamul waxa weeyaan gudoomiyaal gobol sidaas darteed ayaguna inay dhahaan waxaan nahay madax power loo yeelo si annaga nagula kala diyo oo midba qayb loogu marka koowaad waxaan aad ugu faraxsanahay in doorasho ay dhacdo si niman ay ku dhacdo aad u taageerayaan iyo gobolka noolahay oo ah position ugu weyn ee Soomaaliya ay ka socoto hadday gaarto maadaama ay dowladda arrintaas aad waxaan in muuqato macnaha innaga macnaha aan lahayn talada iyo macnaha inaan lahayn go'aan aan lahayn qof kasta oo Soomaaliya oo madaxdeena ay go'aan lahayn meesha rabaan in uu kiro meesha rabaan isdiig maadaama uu amraayo markii imaado waa imaanka barnaamijkaas aad shirka ka dhacay maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan xeyndaabka macnaha xirada Afasiyoone ee macnaha magaalada Muqdisho aad baan indhaha ugu haynaa dabcan waa shir macnaha xasaasiya marka waxa waaye maanta waxaan dhihi karnaa waa maalin mudan ummadda Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafad inaan loo kala harin marka waxaan dhihi karnaa insha Allah hadaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan macnaha reer Muqdisho shirkan macnaha waxa waaye maanta waxa uu dhan macnaha maamul goboleedyadii macnaha dawladda federaalka macnaha ma fahamtay waxa kale oo dabcan jirbeesha caalamka marka waxa waaye ummadda Soomaaliyeed hadaan nahna shirkan rajo aad u weyn ka qabnaa insha Allah hadaan nafta qabno waxaan leenahay dagaal dabcan waxa wax faa'iido ma lahan qax wax faa'iido ma lahan ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay nabad horumar waxa waaye dabcan doorashada 4 sano mar waxa waaye waa qori isku dhiib waaye 4 sano macnaha markii la joogo doorasho ka dhacdo marka waxa waaye shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay hore u socdaan maanta waxaan u baahannahay asaagina caalamka inaan la tartanno waxaan u baahannahay waddanka inuu hore u socdo waxaan u baahannahay inaan macnaha warshado aan leeyahay nuclear wax walba inaan subsano macnaha marka maanta ma ahan wiilka macnaha maanta oo 30 jirka oo maanta Britishka iyo wiilka Asiyaanka maanta dabcan hadaa ah wiil Soomaaliyeed aqoon-yahan oo professor oo jaamacad soo dhameeyay xaq waxaan u leeyahay maanta in aan noqdo dhalinyarada maanta 2021 dadkii maanta hogaaminaya dalkan waa inaan noqono maanta insha Allah Soomaaliyeed waxaan leeyahay waliba aqoon-yahanada waxaan leeyahay aqoon-yahanada saax waxa loo baahan yahay dalkan in dadkan in la macnaha hore loo socodsiiyo madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweyne madaxa meel u sareyso oo la salaax ma jiro dalkan in dadkan shalay way ku doorteen maanta waxay u baahan yihiin inaan hore u wado hadaan shacabka Soomaaliyeed aanay waa ku soo dhaweynaynaa shirkan waxaan ka rajaynayaa inaan waxyaabo macnaha oo dhaxal soo bixiso maamulada Jubbaland iyo Puntland waxaan leeyahay ummaddiin dhinac ka raaca shirka macnaha kuwa baxsada maanta badbaado qaran waxaan leeyahay war adiga hadaa badbaado qaran tihiin waxa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed kan baadiyaha joogo kan professorka kan macnaha tuulada joogo midka baan qurbaha baraf ku dilaayo inaa u naxariistiin ummadda Soomaaliyeed waxay kaga baahan tahay maanta shirka maanta loo fadhiyo waxyaabo natiijo leh ma ahan macnaha shir qabo nothing madaxweynaha markii lixaad mar shir oo qabto waxa loo baahan yahay hadaad wax qabtiin Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in hore loo socdo ummadda Soomaaliyeedna macnaha waxa way cadawgeeda gudaha dibadda marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay war cadawga gudaheena fiirino iyo ka banaanka aleena maanta Kenya macnaha maanta Kenya maanta la dhaaranayso annaga macnaha waxa way Kenya iska daaye maanta wixii taa gabdhaha u diri jirnay Kenya fiiri gabdhaha loo diri jiray iska daa maanta Kenya soo weystay marka waxaan leenahay insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay 90% maahan oo 9 shirkan waa soo dhaweynaa waa taageersanahay laakiin waxa loo baahan yahay shirka inuu wax natiijo wax rajatay inuu leeyahay Soomaali maanta caalamka waliba joogto indhaan ku wada heynaa rajadaan ka qabo waxaan ka rajaynayaa khayr inuu shirku ku dhamaado ilaahay taasaan ka rajaynayaa mid kale waxaan u sheegayaa labada maamul goboleed waxaan u sheegaynaa inay dawladooda raacaan oo ilaahay ka cabsadaan mucaaradkana waxaan u sheegaynaa inay dawladooda raacaan
mabaan Soomaali Maxamed way soo jeesatay dagaal ma rabno reer Muqdisho hadana dagaal ma rabno shirkan maanta ka furan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalin ah waxaana looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka kaasoo sida la sheegay lagu dabaqi doono heshiiskii 17 September 2020 laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka Maxamed Axmed Mursal magaalada Muqdisho